jacaylkan aaminsanahay inuu yahay kers sababtuna maxay yahay inuu masiibo yahay aniga waxaan ahay dadka ugu baadh la kisan ugu nasiibka xun markay jacayl noqoto ayaan ahay marka jacaylka wax xun baan ka aaminsanahay dhibaatooyin kala soo darsay ilaa xad kuwii loo been uga taaban kartaa si ay bulshadu uga cibro qaataan walaahi weligay horta anuu qof ma jeclaa oo intaan qof jeclaaday arji u qortay amba aan kaga horeeyay oonu jacaylan la wadaagay ma jirto laakiin mid la ila yimi oo aqbashay oo marka dambana dee waxa weeyaan saa tareenka idul mara bay ugu soo badnaa dadku waxay aaminsan yihiin jacaylku waa one time hal mar wada jeclaan kartaa waxa kale waa xiiso laakiin ma jirtaa taas marka imse jarbu qofku awoodi leeyahay wax jeclaan والله تو دونو وحويان horta jacaylku waa labo mid waa mid aan guurino waa mid kaadi ilmahaaga iyo waalidkaaga idinka dhaxeeyo midna waa mid adiga iyo partnerkaaga qof aan baad isguursateen aan baad shuka isku idin dhaxmar daadis kan ka hadlayna waa kaas dabcan aliyad kan kale waxa weeyaan waa bad barmado mid meel u socdo mana dego mana socdo adiga hooyada iyo adiga ilmahaaga halkii uu taagay dabcan kan kale laakiin waxa weeyaan kulito aniga dhibaatooyin badan baa iga soo gaaray ilaa yaraanteedii bari baa waxaan xasuustaa waan dambaabo waxaan eri ani horta fihimay ninka ugu horeeyay guursaday walaalkaabo dadku horta ma ogeeyno walaalkay qabi jir laakiin maanta waan qarxinaya inaad egas dumaashiday tahay adii laftirkaaba qof baad ku soo nolol inta nin aan nolol soo wadaagay iyaga soo doontay ilaahay amarkii maanta nasiibkaygu aniga sidoo yahay macnaha dadku qof walba wuxuu rabo iska camirtaa laakiin tusmo markay jacayl noqoto I have the worst luck jacaylka qofka ugu nasiib xun baan ahay I don't think qofiga nasiib xun inuu jiro today halkan baan joognaa magaalada Hargeysa waxa jira dad darbi jiifa sax oo halka homeless ku ah waxa laga yaabaa wiil halka 25 sano fadhiyay maanta intaan baxo on bartaas tago 25 years nin halka fadhiyay haddana intaan soo qaado andar radiyo oo nadiifiyo oo nin ka dhigo tushan iyo 20 ka sanadood ba halka ku mareysay wax isku yihiin halka uu ku ag mari jirtay oo ku dhaafaysay ba walaaliga ka daba imanaysa that is my luck I don't know why and marka su'aashaadi weydiisay anigu jacaylka waxaan ka aaminsanahay wax magaca tusmo Safiya iyo tusmo madla markii aad fanka ku soo biirtay ayuu magacan tusmo ku baxay horta maya tusmo waa magac ilaa igu waqlalay yani markaan dhashay la ii bixay marka labada magac waliga baa lagu oranayay labada magac horta aniga laba reer oo isguursan jirin baa iska kay dhalay hooyaday iyo aabahay baa ugu horeeyay labada reer oo isguursada colaad iyo dagaal badan iyo waxay isku guursadeen juhri weyn ilmihii u horeeyay labada reer iska dhala ayaan ahay markaan dhashay macnaha hooyaday aabahay way isku dhawaayeen reer ahaan waxa la aaminsanaa inay isgeyn oo aabahay guursanaya gabadhin adeertii oo huna geyn oo de waxa la aaminsanaa ilmo fiican inuu dhalan doonin anu markaan dhashay tusmaa la ii bixiyay waa la ii waqlalay oo de magacii la ii baxsaday buu ahaa markaan 6 sano meelaha jiray waxaan ahaa caruurta jirada badan ma aragtay yaraantii allergic ilaa hadda allergic baan leeyahay seasonal asthma midda waxa saa yaraantii ahay waxa la yiri tusma magac kitaab ma ahe inta laga bedelo anigoo 6 sano jira baa Safiya la ii bixiyay oo la yiri tusma magac diineed ma aha uu ka weyn yahay inta magaca laga bedelo hooyaday iyadoo on Safiya maalin igu yeedhin bay dhimatay oo tusma ii hayso aabahayna Safiyadii buu igu yeedhay marka Safiya tusma waa labadii magac ee hooyay labadaba la ii bixiyay marka ma aha midaan anu hadda la baxay oo samaystay ugu dambeey yaad salaamaysa yaad uga mahad celinaysa goodness dad badan baan u mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa saaxiibaday Hinda Cado Shaare gabadhii nafteedu dhigtay waxaan u mahad celinayaa dad badan oo hadda waqtigan aan joogno aniga sayrkayga ah waxaan u mahad celinayaa adigoo marti ku ahay badiyado ma kula jooga magaalada
bini aadamku waxa weeyaan taankiyoodu enaf marmar ma aha ma noqoto sida aanay sorry u noqon nabar u bogsiin bayna taankiyuna ma aragtay wax u weyneen this hadda waqtigan aan ku jirno waxa weeyaan maalin baan lees soo qori doonaa dadkii difficult time-kii aan qabsaday iga saaray oon u mahad celin doonaa laakiin waxaan u mahad celinayaa asxaabtayda oo haya joogta caruurtayda iga warhaya ee daily gurigaygii taga ee ilmahaygii maad aragtay ii booqda iga warhaya walow ilmahayga hadda ay qaar oo dhaltay yihiin oo iyagu is hayaan haddana hablo iyo waxaa jira asxaab iyo si gaara u og oo maalin walba u taga saaxiibadii safiidiina u horeyso safiya habane asxaabtaydii reer Columbus oo dhan ayaan u mahad celinayaa markay mahad noqoto dhammaan waxaan salaamayaa Soomaaliya oo dhan baan salaamayaa ummada Soomaaliyeed intii magacayga iyo muuqayga taqaanaan salaamayaa walaalahay iyo caruurtaydii oon aan aaminsanahay inaan 1 year ka soo maqnaa oon ka soo tagay aanan waliba uga soo tagay wrong reason aan uga soo tagay baan halkan ka dhunkanayaa wada waxaan haystaa wiil autism aan haystaa oo ma aragtay hadduu irida furo aan soo gelin guriga soo noqonaynin baska in laga dejiyo loo taagnaado ay tahayo guriga haddii Soomaali daris lama ahi haddii baska marka uu yimaado aanan loo taagnaanin ay children service u geyn karaan oon ka soo tagay oon qalad uga soo tagay ayaan hawada ka dhunkanayaa waxaan salaamayaa wiilkayga aabihii Abdinuur Daljir oo inankaygii maalin walba ilmihiisa booqdo gurigaygii mar walba tago caruurtaydii ka warhaya u mahad celinayaa waxaan salaamayaa qof kasta oo sirtayda iyo situationkayga og oo haddana isku kibgareeya iyagu qarin kara sirtayda ayaan salaamayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa fool haddii timaado guda qarsiima hadhe marmar baa waxa ku qabsanaya wax ka weyn oo nad ma aragtay adigu handle gareyn karin asxaabta ila handle gareysa ma aragtay especially hawlaha qaarkood oo ma aragtay labadii sano hadda sanadkan kasoo gudubnay iyo sanadkan igarab taagna waan u mahad celinayaa aad fahimay haddii hub intaa lagu soo qaato gurigaaga lasoo weeraro waad isdifaaci kartaa waad dagaalami kartaa dad baad u yeedhan kartaa iyo dariskaaga iyo booliiska iyo waxaad wacan kartaa wax kuu soo gurmada ma doonaya inaan detail ka galo ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxa maxaan ku dhahdaa 2 years my life was live in hell ayaan dhihi karaa it was live in hell marka si you know dadku waxyaalo badan oo waxa jira ay u dul qaadan karaan maanta ma rabo inaan taabto this actually the point ma rabo inaan taabto laakiin I almost have a nervous breakdown haddaanan ahayn qof muslina haddaanan ahayn qof lagu soo koriyey dhaqan iyo diin haddaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo ma aragtay qof weyna I would go crazy or lose my mind waxay qabsaday waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo igala qayb qaatay oo ilaa hadda i garab taagan waxaa laga yaabaa sida aan anigu wax u filayo inay wax u dhicin oo anu dareemayo aan maaragtay waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa in the same time na waxaa laga yaabaa in noloshayda ay destroy noqoto dadka slave-ka ah America waxaa jiri jiray dad adooma ah
si qaldan baa loo diri jiray qofka waxaa la saari jiray faras baa lagu fadhiisin jiray xadhig baa qoorta loo suri jiro geedka kasoo laalaado qofkaa noloshiisa waxaa ka hadhay intuu farasku dhaqaaqayo faraskaasi hadduu dhaqaaqo meydkiisa awarfanaya I don't want to go deep ma rabo inaan galo laakiin last 2 years I was sitting on that horse faraskaas baan ku taagnaa my life can be shattered like sida galaaska inuu u jabo ayaan in yar u taagnaa ilaa haddana u taagnahay I don't know xilligan ka bixi doono iyo sidaan kaga bixi doono laakiin I had a difficult time baan soo maray ilaa haddana difficult time baa saaran I was hiding for a long time but I don't think inaan isku kibgareeyo is not helping me waxyaala waxaa jira aanad even your best friend kala hadli karin aanad kala hadli karin walaalka hooyada iyo aabaha aanad kala hadli karin adig ku gaara saan horeba u sheegay ma dhaadhici karo ma taaban karo point laakiin jas waxaan u mahad celinayaa dadka i garab taagan sirtayda og iyagu isku kibgareeya qariya iga warhaya maxaan ku idhaahdaa micnaha walow aanay waxbaba iiga qaban karin haddana isiiya encouragement isiiya yidhaahda you gonna survive you gonna waad ka bixi doontaa waxaan iska dhammaanayaa calool adayg ayaan mahad celinayaa dhammaantood wiilal iyo gabdhaba waad mahadsantahay Safiya waan kaaga mahad celinaa martiqaadkaaga barnaamijka iyo sida quruxda badan ee aad nooga soo ajiibtay intaasi waxay noogu dhamaaday barnaamijkeeni kun su'aalood iyo su'aalo martii noogu ahayd Safiya Tusmo